Maarayaha guud ee shirkadda Dhaweeye ee deegaanada Puntland, Maxamed Xasan Saleebaan, oo la hadlayay warbaahinta ganacsiga ee Somali Business, ayaa ka warbixiyay shirkadda Dhaweeye iyo adeegyada ay ku soo kordhisay deegaanada Puntland. Shirkadda Dhaweeye haddaan xog kooban ka siiyo, waxaa la aasaasay 2018 deegaanada Puntland. runtii Dhaweeye waa shirkad weyn oo geyga Soomaalida ka shaqeeya sida hadda Somaliland iyo Puntland meelaha ugu waaweyn. waana shirkad bixisa adeega tagaasida iyo adeegyo kale oo soo raaca sida adeegyada fudud cuntooyinka, adeega alaabaha fudud, adeegyo dhawaan aan soo kordhinayo ayagana insha Allah dadka u sharaxi doono, sida airportada oo kale adeegyo hadda cusub aan keenay, iyo adeeg kale oo la yiraahdo corporate oo shaqaalaha shirkadaha iyo hay'adaha ugu talagalnay. Dhaweeyena markaa waa shirkadaas runtii wax badan dalka ku soo kordhisay, iyadoo aan wax taxi adeeg ah oo buuxa wadanka uu ku jirin, runtiina baahi weyn ay jirtay, kuna shaqeysa technology casri ah oo qof walba uu helayo adeega u baahnaa iyo waqtiga u baahnaa. runtii shirkadda waxyaalaha ugu waaweyn ay maanta qabatay oo lagu faani karo weeye in maanta dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaybo kala duwan leh ay maanta ka faa'iideystaan adeegan oo u noqday shaqo abuur mid ka ugu muhiimsan. qof walba soo gaarigiisa wata oo runtii biilashiisa iyo arrimihiisa uu ku dabarto, ilaa dhowr iyo 10,000 oo shaqaale tagaasida ka shaqeeya ayaa shirkadda Dhaweeye si maalinle ah ula hawlgala, kuwaasoo kala jooga Puntland iyo Somaliland. runtii waxaan isleenahay waa adeeg runtii dadkuna ku nastay, shaqo weyn abuuray. dhalinyaradaas laftoodu waa level kala duwan bay leeyihiin, waxa weeye kuwa shaqo la'aan aha, kuwa shaqooyin gooniya qaban jiray waqtiyo gooniya oo waqtiga firaaqada la ka faa'iideysta, wiilal iyo gabdho isugu jira. marka shaqo abuurkaasi dadka iyo dalkana runtii wax badan buu ku soo kordhiyay, wuxuuna kor u qaaday nolosha qoysas badan oo Soomaaliyeed. runtii waa meelaha ugu muhiimsan oo dadku maanta isku haleeya adeega Dhaweeye. dadka raaca 70% waxay u badan yihiin dumar, sidoo kale caruuraha ayaa iskuulaadka u raaca oo lagu geeyaa. marka meesha wuxuu ka saaray in qofku ka walwalo inuu amni darro ama dhalinyaradii jidka istaagi jiray gaarigiisu inuu safe u yahay haday alaab ka lunto, qof walba gurigiisa waqtigii u baahnaa inuu ku tago. Maarayaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay in shirkadda Dhaweeye ay ballaarin samaysay deegaanada Puntland ay si mugle u wada gaartay. Maarayaha ayaa sheegay in shirkadda Dhaweeye ay dhawaan u soo bandhigi doonto macaamiisheeda kala duwan adeegyo cusub oo ku qotoma baahiyaha macaamiishooda. runtii macaamiisheena aad baan ugu mahadcelinaynaa, waqti dheer bay runtii nala soo mareen iyo marxalado kala duwan. marba marka ka dambeysana waa adeegan sii horumarinaynaa. sidaan hore kugu sheegayna adeegyo badan oo kale oo bulshada u baahan tahay oo hadda aan soo kordhinay baa jira cusub aan macaamiisheena ugu talagalnay. kuwaana waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iideystaan sida cuntooyinka in qofka gurigiisa jooga loogu geyn karo, alaabta fudud oo qofka isaga xafiiskiisa ama meel ku soo ilaaway ama meel looga soo qaaday gurigiisa iyo goobtiisa loogu geeyo. airportka aan u sameynay airportada Puntland oo dhan hadda aan Boosaaso iyo Hargeysa Boosaaso iyo Garowe aan hadda hirgelinay, gaalkacyana dhawaan adeega ka hirgelin doono in macaamiisha soo degta iyo kuwa safrayaba aan ku geyn doono baabuur gooni u diyaarinay. adeega hadda aan ku sheegay la yiraahdo corporate ama isku xirka macaamiisha iyo shirkadda, oo asagana isleenahay shaqaalaha shirkadaha iyo hay'adaha goonida ah oo daneynaya inay macaamiishooda shaqaalahooda inay ku soo qaataan kuna rawaxiyaan, qofna meel kaga soo qaadaan, asna dhawaan aan daah furay doono. intaas ayaa waxaan leeyahay waa adeegyo cusub oo macaamiisheena aan u sheegayno.
adeegyada runtii tagaasida oo hadda horey u jirayna waxaan leenahay waa ka sii wanaagsan yahay sidii hore haday tahay baabuurta dadku isticmaalayaan haday tahay waqti walba in la heli karo marka aad iyo aad baan macaamiishana runtii ugu mahadcelinayaa